Soomaalidu waxay ku mamahdaa magac iyo musiibo maalin ayuu baxaa sidii 2027 magacooda samada u galay hashtagaasna uu u gudmay astaxajiyo waxaa ku soo baxay dad badan oo dhan walba kaga dhagan kuliyadiga shaatiga dambe live walbo TikTok waxaad ku arkaysaa astaxajiyo oo lagu dhagan yahay oo wax loo saarnay taalo kala ayaan dhigta xarka yar oo teamka marka soo muuqday asad oo meena wax la sameeyay collaboration waxyaalahaas la sameeyay oo waxa la arkay lahayo teamkaas adigu maxay ka tageen amal markii education ka aadayeen ama xafladii oo 2 milyan ay sameeyeen yarka xafladda koowaad waa uu ka qayb galay laakiin xafladda labaad ma uusan ka qayb qaadanin teamka xafladda labaad u baxay taas micnaheedu ma ahan in labada team ay xurguf dhaxmari karto ama ay ka dhaxayso marana kilbiga soo jiray live-ka oo yarka saarnaa waxa uu afkiisa ka dhahay oo ama ka qirayay oo lahaa hadii anigu wax lagu siinayo inaan asset aan negative ka sheego ama waxyaalo xun oo asiga negative ahaan uu leeyahay inaan public aan soo dhigo private u ahaa oo aad wax ugu siinaysaan ama wax aan ku noqonayo ama aan ku helayo ama subscription badan aan ku helayo ama taageero badan ay ugu soo biirayaan raali ahaada camal taasina runtii waxay cadanaysaa shakhsiyad wanaagga qofka iyo inuusan ku milmin trendinga marka baraha bulshada laga rabo in laga sameeyo qof marka shakhsiyad ahaan u dhisan una muuqda mid focus ka saaraya danihiisa iyo hadafyadiisa guud oo markaa asiga nood gareystay inuu gaaro waqti kooban gudaheedna uu ku meera dhaliyo dad badan oo YouTube channel leh waxaa jira yarkan ku eedeynaya inuusan ku fiicnayn collaboration-ka dadka markaa banaanka ka yimaada ama uusan markii horeba aysan team ahayn asigoo kaaga jiidaya ama ka baqaya in dadka ay ka wataan dadka asiga ku xiran ama asiga lagu barto sidaasna laga yaabo in viewskiisa hoos u dhaco taasoo keeni karta in asiga trendkiisa hoos u dhaco sanadaba mid bay u shidnaataa suuqyada social media Soomaalida asad waxa uu soo qashirtay markii YouTuberadii dhan ay dhanka u wareegeen 2021 marka ay aad usoo badatay giftiyada laga helo dhanka TikTok YouTuberadii halka dhanka madadaali jiray in ay u wareegteen dhanka iyo TikTok taasi waxay fursad siisay in asad uu channel kaga faa'iideysto inuu noqdo YouTuberada ugu sareeya dhanka iyo Soomaalida tartankii trendka giftiyada TikTok waa uu soo dhamaaday YouTuber badan waxaa jiro oo hadda suuqii ka dhacay oo suuq yari ku dhacday oo muuqaaladooda daawashadooda ay aad oo sidaa badan ugu yimid ninba waqtigiisa bay waayuhu u ciyaaraan oo YouTuberada kale waxaa leeyahay niman yahow waqtigiisa yarka ha qaatay ka dhaca idinkuna kiina iska suga ama u dadaala